madaxweyne Muuse maxaa warbixin noo haysaa maantay adoo soo koobaya markaan soo koobo dawladdan Soomaaliya maanta ee Maxamed Cabdilaahi hogaaminayo waxay ahayd tii ugu cadaawad badnayd intii dawladda soo martay madaxweyne maxaa kamid ah kullu hubtoos waxay ahayd dawladdii ugu cadaawad badnayd ee dagaalka ugu kulul la gashay Soomaaliland saadin cod uga waxa kamid ah horjoogsiga dhaqaale iyo cunaqabataynta ee iska hortaagtay Soomaaliland in caalamka ay cid baxay la yeelato ku waxsiiyada inaanay cid bal la baacsan karin inaanay cid waxsiin karin waxa wada ogsootay dagaalka ay ka gashay mashruuca ballan madaxweyne bal maxaynu walaalaha Soomaaliya kula heshiin karnaa waxaan kula heshiin karnaa bal noo sheeg maanta horjoogsigii sanduuqa mashaariicda u gaarka ah Soomaaliland ee dawladdu ka siirayeen special arrangement maanta Soomaaliya iyo qolada koonfur badhaho laba qodob ay baynu walaaltinimo iyo iskaashi iyo nabadkooda gaari karnaa laba qodob oo mudane madaxweyne labada qodob maxay noqonayaan noo sheeg bal labada qodob walaalaha Soomaaliya marnaba kama maarnay markaas uu baahan Soomaaliya waa Soomaaliya meel kasta joogtay Soomaaliya qolada koonfureed inay xishmayso oo xurmayso go'aankii shacbiga Soomaaliland iyo xaq ay u leeyihiin inay go'aankooda iyo rabitaankooda kaga baxaan midowgii ay sida toddobaadnimada u galeen ee shacbiga Soomaaliland gaaray 18 May 1991 inay ixtiraamaan kaliya ayaan ku heshiin karnaa laba waxaynu walaal noqon karnaa iskaashan karnaa jaar wanaagsan noqon karnaa marka Soomaaliya madaxweynaha imka jooga ka bilaabo iyo kuwa soo socda ha maqleen marka ay aqoonsadaan qarannimada iyo madaxweynaha dowladda Soomaaliland ee qiraan inaynu nahay Muuse warkada oo midoobay iyaga oo isqasbin oo frontier ah madaxweyne Muuse ka war farmaajo haduu Hargeysa imaado mudane maxaa u diidaya Abi Axmed buu amaanaya isaguna madaxweyne Soomaaliyeed maaha oo siyaabo ku imanaya la isku diinaya xeerarka caalamiga ah curfiga dawliga ah aqliga saliimka ah midna ma qaadan karo ninka dawladdiisii iyo dalkiisa oo ka madaxda yahay waxa soo dambiya galeen ayaa dadku waxa u geysay waliba oranaya madaxweynaha ugu dambeyn oranaysa Soomaaliya macluus oo wada soo inta ma runta idin sheegaya war Muuse la isku maraacsana Soomaaliland beelan oo galeen ma dagaal sokeeya sameeyay أنا وحكلون قرقر ماي أنكو عبره قالوا يجي فرح ولا كلا جويون بارين تاك جوابيه فرح وحيري قصل بيره فور القيحان قيل عن قرناي فورانا في لقى قفلي قبرنه سياله تقوم بهالكي لقوا قتلي قارت صادقان ما نيجي بدي الله يقرشا الله يقول قال يجونه هونتي لما بارانينه قريارة نبض وريارة كلا قوسنا يقوم ملاذ والسلام الله كسهدي يا وحكلك يا إلهي على مصر